maamulka degmada Wadajir ayaa maanta u kuurgalay xaaladda deegaanka boqol ee xeebta Jasiira taasoo dadka deegaanka qalqal ku abuurtay haan qafilan oo ku soo caarisay xeebtaasi gaar ahaan deegaanka boqol oo qiyaastii 34 kiiloomitir u jirta caasimadda Muqdisho. Gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo ay weheliyaan saraakiisha ammaanka degmadaasi ayaa soo indheeyay xaaladda deegaanka gaar ahaan deegaanka ay ku soo caarisay haantaasi lagu arkay xeebta Jasiira oo aan la ogeyn waxa ku jira gudaheeda iyadoo warbixin ka dhageystay dadka deegaanka ee ku dhaqan xeebtaasi. qaar ka mid ah dadka deegaanka Jasiira oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya haantaasi ku soo caarisay xilliga ay arkeen iyo cabsida ay ka qabaan dadka deegaankaasi. Maxamed Xasan anoo ka mid ah dadweynaha deegaanka Jasiiro waxaan aad u jeedinaa maamulka degmada Wadajir iyo dowladda dhexe iyo mujtamaca Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka inay naga soo gaaraan fuusta ka soo dhacdo waa baahnay niman kale ay waxay fuusta ku jirtay meeshaan markaan tagnay inay haan fulan tahay weyn oo adiga 2 mitir dhirirkeedu uu yahay waxba afa male waxa ku jiro waxa saamana waxay leedahay calaamadooyin gaanjooyin biro gaanjooyin ah ee xiriirin oo badda markii la soo saaray lagu soo xiriiriyay xirka ayaa ku xirxiran gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci ayaa sharaxaad ka bixiyay cabashada kaga timid dadka deegaanka Jasiira isla markaana sheegay inaysan ahayn markii ugu horeysay ay haan ku soo caariso deegaankani balse dhowr jeer ay sidaan oo kale haaman u soo caariyeen. ما مركز سدحاد هذا كهر عن أرنوان الدوغني ويدنا عجسير كسوع عريسي وان الدوغني يا كلا كاشتين كديجا مهان أنا كمركز سكوفلين مركا لكن أنا تانواد أرتين من الجمل هو وين يكوجرتا مركا ملقا صار كرو سفود ملقا صار كرو وحبة تنبض وباهان تاي بقل حوال مش اللي ده واي ماشي كسوع عريسي أنا بدي كده معمل كأري ديره واي وبدي كسوع عريسي مركا ساعدها ورك هلنا حالا لحصة يبرون السوق على بوركاسو ساك أفرت الساعة نقد أكتب نوام. ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci ayaa baaq u diray beesha caalamka iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta wax ka qabashada haantaasi ku soo caarisay xeebta Jasiira isagoo dadka nawaaxigaasi ku dhaqan ka codsaday inay ka fogaadaan khatarta haantaasi ka dhalan karta. beesha caalamka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha dawliga kuwa dawliga ahayn iyo dawladda Soomaaliya arrintaas inay aad iyo aad nooga gacan siiyaan arrintaas wax nagala qabtaan bulshada heer Jasiiro ama deegaanka degan bal inay ka fogaadeen ayaan kula dardaarmaynaa. ma ahan markii ugu horeysay ee lagu arko xeebaha dalkeena Soomaaliya haaman soo caariyay balse waxaa horay sidaan oo kale lagu arkay xeebo ay ka mid yihiin gobolada bari iyo kuwa koonfureed intaba.